dibadbax rabshado wata ayaa barqanimadii maanta ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha. Dadka dibadbaxa dhigaya ayaa la sheegay inay ka careysan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ilbaabada isugu laabay goobaha ganacsiga deegaanka. Xaaladda ayaa ah iminka mid kacsan, waxaana xiran dhammaan goobaha ganacsiga deegaanka ceelasha biyaha. Hal ruux ayay ku geeriyooday dibadbaxa intii uu socday. Rasaas uu riday askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa galaaftay nolosha qof rayid ah oo ka mid ahaa dadkii dibadbaxa dhigayay. Askariga rasaasta riday oo la socday mootada nooceeda loo yaqaano Fekonta ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana hadda dadku ay yihiin kuwa taageero ku gubaya bartamaha laamiga. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك